kaniisadda hooyo ilaah. Ku soo dhawaada dhismaha weyn ee kaniisadda waxaa la dhisay qayb veeri ah. Waxaa muuqata in dhismaha dambe uu aad uga liito tayadiisa. Waxaa laga sameeyey dhagxaan iyo haraaga dhoobada. Laakiin waxa ugu yaabka badan ayaa ah in markii hore kaniisaddan ay lahayd arqooyin waaweyn oo aan derbiyo lahayn. Halkan hore waxaa jiray waddooyin, meel bannaan. Waxaa muuqata in derbiga ku yaal arrintan la sameeyey kadib. Duux kale, dhisme kale. Shacko aad u xun. Duuxyada waxay ku digeen loox alwaax ah, ma sameynin dhisme duux ah. Dhammaan arrintan waxaa lagu dhisay duuxyo aad uga dambeeyey dhismaha kaniisadda. Aan ka eegno dhinaca kale. Waxaa si fiigan u muuqdo daldaloolka u dhaxeeya derbiga iyo dhismaha dambe. Daldaloolku wuxuu ku socdaa xadka furitaanka la digay. Duumaha waxay kala duwan yihiin, midabka isku dhafka ayaa kala duwan, dhumucda xariijimaha waa kala duwan tahay. Shaki la'aan, furitaanka qaab dhismeedka ayaa la digay kadib. Waxay noqonaysaa in arabtiyadan waaweyn aysan horey u lahayn derbiyo. Halkan waxaa jiray marino u soconaya waddada. Vanka saddexda dhinacba. Dabcan waxaad fahamsan tahay in cimilada qabo ee Ruushka aysan suuragal ahayn in la isticmaalo kaniisaddan. Maxay Ruushku marka hore u dhiseen kaniisad aan derbiyo lahayn kadibna ay bilaabeen inay si xun u xiraan furayaasha waaweyn?